qodobka kale waxa weeye dadkeena waa dayac dadkeena shacabka reer Soomaaliya ma garanayo cid ka wakiila waxa weeye dawladdu ay shacbigeeda ilaalisaa halkay dhibaato ka jirta ilaalisaa waa u tawadekeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro haddana waxay inta heli karaysa haddana waxay u baahdaan dadka buka haddana waxay u baahdaan magaalada inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan India iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaalada Ethiopia dadkeena waa lagu dhibaa waa lagu hiyuumilad gareeyaa dumarkeena u badan dad buka wada waan kala hadlaynaa safiirka Ethiopia laakiin wali abuse ku socdaa waxa weeye dawladda Ethiopia ayaa xuduudda ka mas'uula federal government-ka marka ka tarawdid tago jaale waxa baasaboorka ay dukumentka ay dawladda federaalka halkaas ay runtu ku dhamaataa adduunka dib laakiin waxa weeye iskala ka shanaad askar yar yar oo leeyahay iskuul waxa new police oo isku wada reera oo isku jira magaalada saychak boydintoodu isku jira maxaa oran kara 5 kilomitir ay dadkeena dhila oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya hiyuumilad gareeya oo waxa say u galaan hadaa aragtaan iga wadaan yahuud u gelin falastiiniinta checkpointkooda arrintaas waxaan doonaynaa dawladda inay gacan ku qabato waxa la mid ah in Djibouti waxaad ku xidhan yahay ilaa maanta la qarxiyay Djibouti ilaa maanta dadka iyo halka waa lagu dhibaa kuwa soo gelaya waa lagu dhibaa Soomaaliland dad masaakiin ah oo reer Soomaaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30 xaga keen soo xaga masaakiin inaguna uma roonin mana ilaalino dawladda kale marka arkan dadkaas oo gelisay ayaguna u geliya arrimaha waxa uu fiican dawladda inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda khaarijiga ilaaliso daakhiliga ilaaliso protest la sameeyo arrinta aad iyo aad baan jeclay dawladda federal government-ka in laga hadla Soomaaliya waa la wada dagaa anaga dadkeena waa Ethiopia way ka yimaadaan khamriga ka yimaada qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qurun dhanba ka yimaada kuma fura baa lagu soo daaya haddii noqoto in qofka asalkiisa la eego Soomaaliya waa kala accent waa la garanaya dialogue yaani waa retaliation bala sameyn doona dadku Soomaaliya waa la wada dagaa Soomaaliya ma ka dhaxaysa shanta Soomaaliba ku jirta reer aan ku jirin Soomaaliya shanta ma jiro ilaa ka afmadu dagaa ilaa ka ashcad dagaa way ku jiraan Soomaaliya ومش ولا شنطة صومال لقيه هنا عمرك غير قول كو أبتمر وكتنتو وضفي كلا كو أبيوس كريو واحد أوجانا كريمة دولي تو إحنا شيءنا هنا أرنت حاسي أي كده عين كرتو هنا قبائل كيستلان يعني قبيلة ما حكومة كرام نو غير حكومة كرام الدولة غير شعب قاسد تيم محمد سياد بري أي الله أرك غير أنت تياراديس dalka iyo awoodii ku burburiyeen ku caburiyeen wixii ka raacay wadi ogeeyeen waxaan leeyahay madaxweynaha kirka shanaad hore waan waqti 2016 waan la kulmay waxaan yiri waa inaad Soomaali isku wada shanta Soomaali waa isku wada dhulka Soomaaliya soonaha shanaad waxa lagu ilaalin karaa midnimo Soomaaliyeed waa dhul balaaran dhul khayr qaba way laakiin oo qabiil dusha ka fuulo anagu ogolaan mayno aan ka xunahay dadka maatida ah ee alaabtooda laga daadinayo ee haweenka u badan ee la caayo ee la humid garanayo u dul qaadan meen anaguna inta Ethiopia ka imaan soo siyaasad ka sameeyay xadkan ka xiri doona waxba ka soo gelin maayo qofrad ka soo gelin mayso awoodeen tusto ilaahay marka intaasaan ka hadlaha dadkeena waa dayac dadkeena shacabka reer Soomaaliya ma garanayo cid ka wakiila waxa weeye dawladdu ay shacbigeeda ilaalisaa halkay dhibaato ka jirta ilaalisaa waa u tawadekeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro
haddana waa intii heli karaysa haddana waxay u baahdaan wadadka buka haddana waxay u baahdaan magaranaysaa inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan indiya iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaranaysaa etoobiya dadkiina waa lagu dhibaa waa lagu humiliad gareeyaa dumarkiina u badan yihin dad buka wada waan kala hadlay maandhowta safiirka etoobiya laakiin weli abuska u socdaa waxa weeye dowladda etoobiya ayaa xuduudda ka mas-uula federal governmentka markaad ka tarawdid tago jaale waxaa baasaboorka iyo dukumentkaaga iyo dowladda federaalka halkaasay arrinta ku dhammaataa adduunka dee laakiin waxa weeye kiilaka shanaad askar yaryaroo new bolisia oo isku wada reera oo isku jira magaranaysaa jekboysintoodu isku jira maxaan odhan karaa 5 kilomitr ee dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya humiliad gareeya oo waxaad say u galaan haddaad aragtaan iga wadaan yahuud u gelin falastiiniinta jekboyntooda arrintaas waxaan doonaynaa dowladda inay gacan ku qabataa waxaa la mid ah inuu Djibouti waxaad ku xidhan yahay ilaa maanta la qarxiyay Djibouti ilaa maanta dadkeena iyana halkaa waa lagu dhibaa kuwa soo gelaya waa lagu dhibaa Somaliland dad masaakiin ah oo reer Somaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30 xagga keen soo xagaa baxay masaakiin te inaguna uma roonin mana ilaalino dowladda kale markay arkaan dadkaas oo gelisay ayaguna u geliyaan arrimaha waxa uu fiican dowladda inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda khaarijiga ilaaliso daaqiligu ilaaliso protest la sameeyo arrinta aad iyo aad baan jeclay dowladda federal governmentka in lagala hadlaa soonaasha waa la wada degaa anaga dadkeena waa aragtay Ethiopia way ka yimaadaan khamriga ka yimaada qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qulun baa ka yimaada jumca fura baa lagu soo daaya hadday deen noqoto in qofka asalkiisa la eego Soomaaliya waa kala accent waa la garanaya dialogue anigu waa retaliation baa la sameyn doonaa dadku soonaasha waa la wada degaa Soomaaliya ma ka dhaxaysa shanta Soomaaliba ku jirta reer aan ku jirin Soomaaliya shanta ma jiro ilaa ka afmadu degaa ilaa ka ashacad degaa way ku jiraan soonaasha وماشي قول شنطة صومال لقيه أنا أمريكا غير قول كو أبتمر وكو تنتو وضفك كلا كو أبيوس غريو وإحنا أوغانا كريمة دولي تو إحنا شيئنا إنا أرنت هاسي أي كده عين كرتو إنا قبائل كيسدلان يعني قبيل ما حكومي كارو نو غير حكومي كارو دولي غير شعب وقاشدة تي محمد سياد بري أيا لو أركن غير انتهي دياراديس dalka iyo awoodii ku burburiyeen ku caburiyeen wixii ka raacay waajib ogeeyeen waxaan leeyahay madaxweynaha kiilka shanaad hore waan 2013 waan la kulmay waxaan yiri waa inaad Soomaali isku wada shanta Soomaali waa isku wada dhulka Soomaaliya soonaha shanaad waxa lagu ilaalin karaa midnimo Soomaaliyeed waa dhul balaaran dhul khayr qaba weey laakiin uu qabiil dusha ka fuulo anagu ogolaan mayno waxaan ka xunahay dadka maatida ah ee alaabtooda laga daadinayo ee haweenka u badan ee la caayo ee la humiliad gareynayo u dul qaadan mayno anaguna inta Ethiopia ka imaan soo siyaas ka sameyn doona xadkan ka xiri doona waxba ka soo gelin maayo qudrad ka soo gelin mayso awoodeen tusto dilaayna marka waa intaasaan ka hadlaha dadkeena waa daayac dadkeena shacabka reer Soomaaliland ma garanayo cid ka wakiila waxa weeye dawladdu ay shacbigeeda ilaalisaa halka dhibaato ka jirta ilaalisaa waa uu dadkeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro haddana waa intii heli karaysa haddana waxay u baahdaan wadadka buka haddana waxay u baahdaan magaranaysaa inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan indiya iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaranaysaa Ethiopia dadkeena waa lagu dhibaa waa lagu humiliad gareeyaa dumarkiina u badan yihin dad buka wada waan kala hadlay maandhowta safiirka Ethiopia laakiin weli abuska u socdaa waxa weeye dowladda Ethiopia ayaa xuduudda ka mas-uula federal governmentka markaad ka tarawdid
tago jaale waxa baasaboorka ay dukumeedka iyo dawladda federaalka halkaas ay arrintu ku dhamaataa adduunka dee laakiin waxa weeye iskilaka shanaad askar yar yar oo la isku dhaxaynay booliisiya oo isku wada reera oo isku jira magaalada sayidka boysintoodu isku jira maxaa oran kala 5 kilomitir ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya iyo mudad gareeya oo waxa say u galaan hadda aragtaan iga wadaan yahuud u gelin falastiiniinta checkpointkooda arrintaas waxaan doonaynaa dawladda inay gacan ku qabataa waxa la mid ah in Djibouti waxaad ku xidhan yahay ilaa maanta la qarxiyay Djibouti ilaa maanta dadkeena iyo halka waa lagu dhibaa kuwa soo gelaya waa lagu dhibaa Soomaaliland dad masaakiin ah oo reer Soomaaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30 xaga keen soo xagaa fax saakiin inaguna uma roonin mana ilaalino dawladii kale markay arkaan dadkaas oo gelisay ayaguna u geliyeen arrimaha waxaan fiicnaa dawladda inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda khaarijiga ilaaliso daaqilku ilaaliso protest la sameeyo arrinta aad iyo aad baan jeclay dawladda federal government-ka in lagala hadlaa soonaasha waa la wada dagaa anaga dadkeena waa Ethiopia way ka yimaadaan khamriga ka yimaadaan qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qurun dhanba ka yimaada gumca fura baa lagu soo daayay hadday noqoto in qofka asalkiisa la eego Soomaaliya waa kala accent waa la garanaya dialogue anigu waa retaliation bala sameyn doona dadku Soomaaliya waa la wada dagaa Soomaaliya ma ka dhaxaysa shanta Soomaalida ku jirta reer aan ku jirin Soomaaliya shanta ma jiro ilaa ka afmadu dagaa ilaa ka ashcad dagaa way ku jiraan Soomaaliya ومش قول شنطة الصومال لقيه أنا عمرك غير قول كو أطمر وكنتو وضفك كلا كو أبيوس كريو واحد أوجانا كلامه دولي تو إحنا شيءنا إن أرنت حاسي أكيد عين كرتو إن قبائل كيسدلان يعني قبيلة ما حكومي كرو نو غير حكومي كرو دولي غير شعب قاشة تيم محمد سياد بري أي لو أحكي غير أنت يا رئيس dalka iyo awoodii ku burburiyeen ku caburiyeen wixii ka raacay wajib ogeeyeen waxaan leeyahay madaxweynaha kirka shanaad hore waan 2013 waan la kulmay waxaan yiri waa inaad Soomaali isku wada shanta Soomaali waa isku wada dhulka Soomaaliya soonaha shanaad waxa lagu ilaalin karaa midnimo Soomaaliya waa dhul balaaran dhul khayr qaba weey laakiin uu qabiil dusha ka fuulo anagu ogolaan mayno aan ka xunnahay shacabka maatida ee alaabtooda laga daadinayo ee haweenka u badan ee la caayo ee la humid gareynayo u dul qaadan mayno anaguna intii Itoobiya ka imaan soo siyaasad ka sameeyay doona xadkan ka xiri doona waxba ka soo gelin maayo qofada ka soo gelin mayso awood aan tusto ilaahay marka waa intaasan ka hadlaha